الرحمن الرحيم halkan waxaan ka bilownay maanta gabagabadii mashaariicdii 2013 aan qorsheynay oo ay ugu dambayso wadadan iyo wadada Sheekh Cali Jawhar iyo wadada Sheekh Cusmaan oo ah bridge laga dhisay haduu la yiraahdo wadadan waa wadadii isku xidhaysay dhigta ilaa wadada seeraka talaabisa bridge-ka waa 1600 mitir waxaan ugu talagalnay imika bishan inaan gabagabino sodonka January haduu la yiraahdo waana mashaariicdii wuxuu ka hadhanaa 2013 aan qorsheynay inaan qaban waad arkaysaan sida ay hawshu u socoto bulshadana waxaan ku dardaaraynaa si aan u hirgelno wareegtadii wasiirka uu soo saaray ee lagu qurxinayo bilicda magaalada qof kasta 3 mitir ee ka soo horeeya inuu dhiso oo uu markii dhigo ama dhagaxa kabarsoonka ah inta ka dhaxdayna anaga dhisayna haduu la yiraahdo maanta goluhu wuxuu diyaar u yahay halka inuu kala tago wax qabad muuqda oo dhab ah oo la taaban karo bulshadana waxaanu leenahay loo soo jeesto xagga wax qabadka iyo wanaaga fariimo badan oo halkan ka gudbinayna waxa kamid ah koow oo kulay go'aan golo deegaana ku soo baxday ana fulin doono sharciga cidii amarka qaadan weyda geerishada la iska dhaxdhigtay wadooyinka geerishku hadaanu ku jirin guri geed leh oo albaab leh laguma ganacsanan karo wado geerish laga dhigo marna lagama dhigi karo waana arin khalad ah bilicda magaaladana wax yeelaysa وعدد waxaan nooga qorshaysan kulay baahi badan baa ka jirtay wixii aan qaban karina waanu ka qabanay laakiin qayladhaantii aanu dirnay waxa nooga soo jawaabtay hay'adda FAO waxayna yiraahdeen hawsha bridge baanu ka dhigaynaa kadib iyadoo xidhan oo aan doonayno meesha inaanu dhamaystirno oo wixii aan qaban karna aan qabanno ay yiraahdeen anaga wax ka qabanayna anaga halana sugaa alxamdulillah kadibna wala furasi temporary lagu sii maray imika muhiimadda aan ka hadlo sidaan marka hore hadalkay ku daray wadada Sheekh Cali Jawhar waa taa imika noo qorshaysan asardina waan ku wada hadalnay iyagan kontract ku siinay waxana bilaabaynaa weeyga gudiisa haduu la yiraahdo maadaama dib ay u dhacday oo lacagtu xagga hay'adda ay dib ugu dhacday nagala qayb qaadanaysa dhismaha wadadan waxaanu isla garanay contractorska in muddo bil ah lagu dhameystiro wuxuu qabiye ka yahay 2013 2014 umaynaan gudbin imika ayaa la sameynayaa feasibility study meelaha aanu priority-ga siinay wax laga qabanayay oo ay kamid tahay wadada airport-ka oo ay kamid tahay wadada Sheekh Cusmaan oo ay kamid tahay town plan-ka oo ay kamid tahay saldhigii aanu ka dhisayno boon iyo deegaamada hoos yimaada degmada Boorama oo ay kamid tahay wadada Galder Road waxa soo dhan waa waxyaabaha imika hay'addu soo baxayso ee la doonayo feasibility study marka la sameeyo in la bilaabo bisha haday ugu dambayso February haduu la yiraahdo laakiin kan wuxuu qabiye ka yahay waa dhamaystirkii mashaariicdii 2013 ligaas waa mid aan dareemayno qabiyada ka jirta amount-ka loo qoondeeyay lacag ah iyo waxaana isku filayn space-ka laga dhisay markii hore wax loo qoondeeyay space yar laakiin imika waan kordhinay oo xataa birmadku qayb u gali karo ayaanu ku darnay marka inta qiimaha dhintay waxa weeye ama uu ka qabiyoobay meeshan weynaynay waxaana noo qorshaysan sanadkan oo 2014 noogu jira inaanu dhamaystirno aniga oo ku hadlaya magaca shirkadda wadada dhisaysa NCC kontraadka ayaa ku qaadanay wadadani ka soo bilaabanta muxuu ahaa dhigta ilaa bada saabka wadadaasi sidii heshiiska aan ku galay waxaan ku rajo weynahay inaan ku dhamayno waqtiga aan heshiiska ku galay iyadoo inaguna aad naga caawin kartaan dadweynaha iyo dawladaba wixii dib naga hor yimaada sida geerishadani imika wadadii kala gooyay arkaysaan waan ka soo boodnay imika geerishka waan ka soo boodnay waxaan dawladda hoose iyo dadweynaha ka codsanaynaa in si hufan la noola shaqeeyo haddii aan la qadaro annagana waxaad noogu ducaysaan in aan ilaahay nagu asturo oo waqtiga la noo qabtay aan ku dhamayno haddii aan la qadaro iyadoo wadadaasi mid tayo leh aan ku rajo weynahay inaan ka dhisno mid tayo leh oo wadooyinkii hore ee la sameeyay ka tayo fiican